الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مقعي محمد يوسف محمد الكعسي تففترها ورقيسك مدح بنانة فوري أنا ملكي لها وعبد الرشيد شيخ عبد الوهاب شيخ إبراهيم أي قرف فريق ماريه جودة ورقيسك سيدا لا سعوتين ورباهين تو إلى سعوتي مدوين كي جودن بيي دعوة فربضان بنا جلس سعودي محكمة ده هي حير لالنتا هير دعوة دو حجاري دعوة مكجودن بيسي ما أنت على قدر واقعي saaka todobadii barkii subaxnimo ilaa 8 buu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodi Jeex xukun ka dhan ah wargeyska madaxa banaan ee Foore xukunkaas oo ahaa xukun cadaalad darro ah xukun argoosi aan u qaadanay inuu yahay xaqiiqadiisuna saas tahay nuxurka dacwadana loo haystay waxay ahayd warbixin faalawareeda oo wargeysku qoray bishii 8aad ee sanadkii aynu ka soo gudubnay 2018 warbixintaasi ama faalawareedaasi wargeysku qoray aniga gacanteeda ku qoray ahna tifaftiriyay wargeyska faalawareedaasi waxay ahayd ay ku saabsaneyd rarista madaxtooyada cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waqti duruufaha nololeed ee shacabku ee caafimaad ee waxbarasho ee biyood ay halis ku jiraan ayaan faalawareeda qornay waxaanay ahayd warqada faaladaas maalinta aan qornay maalintii maayirka magaalada Hargeysa golaha guurta uu ka sheegay inuu madaxweynuhu ku amray in dhisme madaxtooyada la diyaariyo galbeedka faaladaas ahayd marka waxay nagu soo eedeeyeen xeer laalintu laba eedood mid waxay ahayd kicin dadweyne oo bulshada lagu kicinayo lagaga horkeenayo oo lagaga horkeenayo dawladooda ay ahayd iyadoo marka ay yiraahdeen caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo biyihii bad wax ka sheegteen si aad markaa ugu dirtaan bay yiraahdeen dadkii ayaad saa ugu dhigteen eedda labaadna waxay ahayd dhismaha madaxtooyada ku tilmaanteen bay yiraahdeen wuxuu madaxweynuhu leeyahay labada eedood kaliya ahayd waxa la yaab leh duruufta maanta wadanka ka jirta ee caafimaad ee waxbarasho ee biyood bulshada yar iyo weynba bulshada reer Soomaaliland guud iyo dibadba way og yihiin taasi eed ma noqon karto in dhisme madaxtooyadu leedahay la dhisayaana been wargeysku sheegay ma aha waa labada qodob waxna lagu soo eedeeyay xukunkii marka maxkamadda gobolka Maroodi Jeex saakay ku dhawaaqday waan ka xumahay garsoorihii maxkamadaas oo nin dhalinyaro ahaa inaanu gafin inaanu waafaqin waan ka xumahay inaanu waafaqin inuu seegay cadaaladii uu garab maray xukun argoosi ah oo dawladdu dabada ka wadayna inuu ahaa waxa la yaab leh gudoomiyaha maxkamaddu markuu go'aanka ku dhawaaqay wuxuu sheegay inuu ganax lacageed aniga la igu soo rogaaniga oo tiftiraha wargeyska madaxa banaan wargeyska Foore maxamed Yuusuf maxamed alkacase waa ganax lacageed oo 3 milyan sidoo kale waxay yiraahdeen waxaanu xayirnay muddo hal sano ah wargeyski hal sano oo maanta ka bilaabmaysa 12 bilood waxaan u arkaa aniga tiftiraha ahna mulkiilihii wargeyska caadi u garanaya xaaladda wadanka inta duruufta dacwadaha iyaga oo dhan nature-keeda dacwadda aniga garanaya nuxurku wuxuu ahaan wargeyska Foore maanta in la xidho waana wargeyska mid wargeysada madaxa banaan bulshaduna taras ku qabto ay ku kalsoon tahay wararku baahiyo warbaahinta walaalaha ee halka ay joogtaan ay wada garanayaan wararku baahiyo faalada wareedaasina waxay ahayd faalo u hiilinaysa shacabka Soomaaliland oo codkooda sheegaysa xaqna uu wargeysku u lahaa inuu sheego lacagta maanta malaayiinka dollar ee madaxtooyada cusub lagu bixinayo inay ka mudnayd inuu madaxweynuhu ku bixiyo caafimaadka iyo biyaha iyo waxbarashada sidaas ahayd warbixintaas oo dhameystiran oo iyadoo qoraanna waan idin wadaagi doonaa qaarkiina hore way u arkeenba wixii markaas Cabdirashiid ku dar doona hadalka waxa dhameeyay tabtira wargeyska maxamed Yuusuf Ciga runtii xukunku saaka nagu dhacay midaan filaynay ma hayn 14 bisha iyo dacwadeedii la dhageystay oo labada eedood ee tabtiru sheegay la nagu soo eedeeyay oo ahaa kicin dadweyne iyo dacaayadeyn waxbarashada caafimaadka biyaha arrimaha la yaab kale waxa weeyaan waxa eedaa iyaduna raacsanida ku jirtay magaca madaxweynaha oo dhameystiran ma qoran wargeyska Foore oo eedda xeer laalinta ku jirtay waad aragteen inteena badan saxaafadu markay magaca madaxweynaha sheegayna gudaha markuu laba jeer ama saddex jeer soo noqdo deduction baa la dhaafay maxaynu sameeynaa madaxweyne biixi marka dacwadda xeer laalinta inagu ogtay waxa kamid ah in wargeyska Foore uu magacii madaxweynaha uu ka tago oo ka dhigo biixi runtii eedaha ku jirteen la yaab kala bay hayeen waan istifaacnay
cadaymo ku filan baan maxkamad degin oo muuqaal maqal iyo dokumentiya waad ogeydeen markii madaxtooyada cusub ay soo shaacbaxday waxa ka hadlay xisbiyada siyaasadda waxa ka hadlay bulshada saxaafadda ka hadashay wixii ay ka hadlaysay baan anigu faalawareed aan ka sameynay oo feedbackii arintii iyo falcelintii ka soo baxday markii ay ka hadleen mas'uuliyiinta dawladdu ay soo shaacbaxday ayaan faalawareed ka sameynay faalawareedkaasina saas u dhacay oo waxay ahayd arrimaha biyaha iyo caafimaadka ka horeeya ay ahayd mid aanu filayn runtii ma ahayn in horta xukun imanayo waan garanay oo kullay cidda wadata hawsha cadaadis weyn baa iyo jiray oo culays badan baan ugu jiray waliba xukuumadii kulmiye kala dambeeyay ee jiray tii hore iyo tanba aniga xukuumadii hore gud bay guriday iyadoo aan waaran la soo jarin ayaa laga dhex qaaday hotelkan dabeedna waxa lagu tiray gud waayay inta culays badan baa inta baan haystay waanu filaynay xukun laakiin ma aan filaynin in xayrada saaro albaabada loo laabo takala la yaab kale waxa weeyaan eeda ay xeelaalintu anaga nagu eedeynayay kuma bay jirin ba in weegeyska la xayro meel ay ka timid xayraadna saaka baba garanaa waa arrin nagu cusub runtii waana ka xunahay in xorriyada qolka halka uu ku dambeeyay wargeyska foore akhristayaasheeda ayaa og runtii bulshada kaalinta ka jirno waxaan u aragnaa imika anagu in si gaar ah lanoo taargadgareeyay oo culays gaar ah maxkamadda la saaray culayskii gaarka ee maxkamadda la saaray uu dhalay in sanad xayraad la saaro xayraadda ma qaadanayno waanu ka soo horjeednaa waan mana ogolin runtii waa la nasaaro way nagu dhacday waa la naxayray warqadaas way soo baxday cadaalad daraan u aragnaa mid culays la nagu saaran aragnaa mid aan runtii ka turjuman baragnaa baahiyaha iyo maanta bulshadeena waxa taagan madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne shalay wad banaanka joogtay saxaafadda waa adigii saaxiibka lahaa ee ay gurbiyaayeen maanta lagaama filaynin inaad warqad yar ku mashquusho oo wargeyskii fooraad ku mashquusho oo aad awooddaada isku keento oo aad aakhirkii aad markaa gundigaaga u noqdo inaad xayraad saarto xayraadaasi maxkamaddana wax xeraalintu waxay shir shiraad qabteen way ka hadleen baa lagu yiri ma dhageysan xeraaliyo gobolku wuxuu yiri waxa lagu helay video been abuur ay sameeyeen dambi baa lagu helay video waxa dambiyo lagu cadaan habeeraata ma jirto su'aalaha ay weydiisay maxkamaddu iyadoo muuqaal aanu geyn cadaymaan geynay waa la baalmarayo maxaa la sameeyay xayraad baa loo gudbay arrintaasi wixii dambana warbaahinta waan ka faahfaahin doonaa assalaamu